السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta casharkeena waxaan ku baran doonaa Intertwin oo ah update lagu soo kordhiyey version-ka 2023 Adobe Illustrator 2023. Waxaan isla eegi doonaa markaa sida loo isticmaalo ama sida loo sameeyo markaa waxa loo yaqaano Intertwin oo ah shay kuu sameynaya inaad isdhex geliso shapes-kaagii ama text-kaaga markaa. Okay, si aan u isticmaalo markaa waxaan soo qaadanayaa xidigtan ama shayga loo yaqaano star kadibna meel bannaan baan click leeyahay. Waxaan sameynayaa points-ka 4 baan ka dhigi kadibna okay baan leeyahay. halkan waxaan ku haystaa markaa imika xidig filkeedu yahay markaa caddaan markaa filka uma baahni filka waxa la iga soo xidh stroke aan baahnay strogiisa kalarkiisa waxaad iga dhigtaa mid caddaan iga dhig sidoo kale maxay size-kana yara weynee mid labaad baan koobiisan waxaa leeyahay markaa tusaale ahaan Ctrl C Ctrl Shift V okay labadooda way select garee waxaan soo qaadanayaa direct selection tool oo ah shape-ka tool ka mid ah toolska Adobe Photoshop-ka Adobe Illustrator-ka xoogay markaa harnaan soo yara gudi aan soo yara xoodi ilaa intaas oo kale sug haddii aad doonayso kooraskan oo faahfaahsan waxaad u heli karaysaa qaab online ah adigoo ku dhiganaya website-kayga tixi.com sidoo kale waxaad ku heli karaysaa qaab offline ah oo haddii aad Hargeysa joogto aad noogu iman karto classes-ka aad halka ku dhiganayso ka faa'iideyso inagu celiya muuqaalka waxaan sameynaya markaa maadaama isku kala yihiin mid ka mid ah bedeliya waxaan ka dhigay tusaale ahaan orange oo kale sidoo kale rotation oo yar bedeli tusaale ahaan ilaa intaas oo kale okay markaa saa u bedelo waxaan ku haystaa laba shay oo markaa kala ah caddaanka iyo orange-ka xogaa haddaan soo yara dhaweeyo sidoo kale waxaan arkayaa markaa imika waxa sarreeya wax loo yaqaano kan orange-ka u sarreeya innaguna waxaan u baahnaa markaa inaan ku sameyno sidii silsiladoo kale ama maxay ahayd shayga midna hooseeyo midna u sarreeya markaa oo isku xidhan oo kale markaa waxaan sameynaya markaa waa select gareyn muhiim weeye markasta inaad select garayso shayga markaa sameynayso Intertwin selection baan saari waxaan tegayaa markaa objective kadibna Intertwin baa leeyahay make markaan sameeyo imika waxaan haystaa marka hore move tool baan haystay laakiin imika haysanaya markaa Intertwin kusoo sameeyo selection u sidaa markaa waxoogaan soo dhaweysan kadibna waxaan sameyn meesha iskugu imanaya labadan shay ama maxay wax loo yaqaano labadan aan doonaya inaan isku sameeyo Intertwin-ka ku sameeyo halka iskaga imanayaan ayaa waxaan sameynaya markaa selection saaraya tusaale ahaan halkaas oo kale waxaan leeyahay halkaas oo kale isku soo wareeji kadibna halkii ku soo xidh markaa waxaan arkaya imika shayga uu soo sareeyay marka hore markaan Intertwin ku sameeyna markaa hoos ku tagay markaa okay kuwa iska boodi waxaan doonayaa kan soo sareeyo kan kale tagiga ku xiga isagana kana hooseysi markaa okay ka markaan ku sameeyo hadana kan kale ka boodi kan kale ku xiga tagi isagana si select baan sameyn hadii aan doonayo inaan ku soo noqdo si select waxaan sameyn karaa mar kale isaguna ku celin karaa markaa markaasaan baahnaa ka dhigi karaa okay kana ka soo goos oo kale kan kale kaalay isagana markaa select selection ka saar markaa saas ku sameyn kartaa